horta daadu waxaan hay dawladda dariska ah ee SSC Khaatumo ee dariska tihiin garxij Islaanow egas dawladdii Somaliland aan bari qaybta ka ahaan jirnay baad weli ka mid tihiin laakiin waxaan idin leenahay taas nin baa milkiila ka amuse bixi la yiraahdee garxij Islaan iska samaysta maadaama uu shalayna inii bareeray oo yiri ciidankii idinka maaragtay dundumiyay oo ma garanaysaa gacan libaax wixii ka dhacay gacmaha laga laaban maayo oo waa la soo qabanay heshiiskii uu ka baxay qofka dubalanka Ilaahay yaxdiga dadka ka baxana dee qof diin laba ma hayo iimaan marka haduu balanti ka baxay deeydukuna balanti ka baxa ilaa isba wax weeye balanti uu ka baxay la idinku dul xidhxidho 30 sano ragiina xiniyaha laga saaro 30 sano hablihiina sharafta la buugaag lagu qoro 30 sano hablihiina indhaha laga tuuro gabileynta lala tago 30 sano gabdhihiina naasaha la laga dhaco garxij soo reer gobaatihiin reer maxay tolay sandaladaatihiin reer suugaanta naga dhaxaysaatiin reer jaarnimo naga dhaxaysaatiin reer ehelabaatihiin goobta shanta Soomaaliyeed baatiin ilmaada reyaalow maamul samaysta hadii kale walaahi gabadhiina guur male waayo waxaad ku jirtaan waxa leedin geeyay meelaydan geeyin walaahi bilaahi Soomaaliya oo dhan way idin aragtaa waxaan wax loo adkeysan karo maaha waa inaad maamul samaysataan Soomaaliya ninkii nin walba tuuladiisii buu la go'ay tuuladiina la go'a degmadiina la go'a reer idinka idin la midan iyo gobolka cagaaran idinku dul samaysan oo beesha caalamka qaadaankeeda idinku qaadan oo wada laamiye idinku dul samaysan oo leerar cas idinku dul xiran oo ay idinku darin idinkama aaba fiicna idinkama nasabad fiic fara haday tahay idinka ugu fara badan nasabad haday tahay idinka ba shixsaxaq furihiisi haya aba gadana matiidin dadka Soomaali taqaanaa tihiin suugaanta caanka ku asayidkii uu gabiyay ulaha nimayaha garweyn gaalaha iga raacina nimanka waxa tiin ciimamadooda aan la haysan karin ma garanaysaa nimankii lahaa baa tiin suugaanta ugu culus qabiiligu halow lama sida laba qorumood waxa soo dhan baad ku suntan tihiin meesha aad maanta taalaan wallahi ma geydaan labada nin ee dhugdhugkuranna iska tuura labaduba waxa weeyaan labadu waa laba neef libaaxa hadii bisada hogaaminayso libaax bisada un buu noqdaa garxij soo labada nin ee maanta Cabdi Ciise isku haysta idin ma qalmaan Cabdi Ciise maanta isku haystaan Faysal wuxuu leeyahay ana suldaan oo Cabdi Ciise soo noqdo xisbigayga gala cirana wuxuu leeyahay Cabdi Ciise soo dhaweynay Cabdi Ciise soo dhawaada marka hal nin hadaad boqoran lahaydeen oo ku dawafin waa horad kursiga tagi lahaydeen waa isla hadheen aan waxa idin sheegay cashuurtiina dambana ha bixinina meeshana iskaga taga aan waxaan oran lahaa hal nin isugu taga hadda laakiin waqtigii waaba la soo dhaafayba waqtigii Muuse meesha boqortooyo ka dhigan lahaa ciidamada Itoobiya inta noloshiisa ka hadhay isaga haysanaya wax doorasho ah oo aad ku guuleysanaysan ma jirto bahalihi indhuhu hadda keensanaya dhulku baadiyo u badan yahay leer ma wada laha dadka in yar baa indhaha laga sawiraya korontada tagaysa si automatic ugu shubanayaaba waxa ku wari kamana hadli kartaan oo inta doorashada la gelin baa labada dhukuran la dhaarinaya haddii la dhaariyana kama bixi karaan oo garxijisku Ilaahayna waa yaqaanaan diintana waa yaqaanaan xadigana waa yaqaanaan marka kamana bixi kartaan waa sidoo idin galay marka waa tumaantu tala wareysanayna wuxuu nimanku soo ku anshalay ka guuleystay maaha kalsoonida qanjaha joogta Muuse anigu waxa weeyaan waa taageersana waxaan u taageersanahay waa nin raga ninka ragayna haduu wax iska celiyo waayo ku tuntaa anagu waan iska celinay maalina ma soo hadal qaado waayo hubkiisi baanu la hadnay ragiisi baanu la hadnay saasay tahay xitaa qudbadiisa naguma soo daro waayo wuxuu ka baqayaa haduu mar dambe na soo hadal qaado bartuu joogo iyo guriga gaaneen aan ugu tagno waana sameyn karnaa marka hadda buurta gacan libaax bay uga shidan tahay inuu mid kale hadaad ka calaacashaan ama markasto aad tiraahdaan wuxuu ka helayaaba taariikhdu reerkiisa u sameynaya doorashadii baan rabnaa siiri soo qaadataan kala yaacdaan balaq weydin record garaysanay reerkooda uu bu taariikh uga tagay yeenamadooda kuwa dhalan doona kuwa dhabarada ku jira idinka oo shalayna gabayo waaweyn baadeeradii idinka tageen waxa lagu baabi'inaya sidii qoolaydii raadkii nabiga baabi'isay fidin bidaa iyo baryootanka aad baryootamaysan maalin walba waxa leedahay dad rabtaana barya idinkoo fadhi xun oo barya xun ugu baan miidiyaha ku jiraysaan marka sabritoole wiilka kale ugu faani doona waa taad sida noo bari jirteen waxa la baabi'inaya waa taariikhdiini dahabiga ahayd idinkuna ma fahmaysaan kursigana inta cirku idin jira waayo waxa la daras gareeyay waqti hore maalintii
ina cigaal iyo Michael Maryam ay Soomaaliya ula carareen Somaliland oo ku dareen baaydi kale ka cararay markii laga soo noqdayna qaaxa heshiiskii jeegaantu hoos u gashay markii la soo noqday Cabdiraxmaan Tuur kabaha lagala baxay dawlad Tuur leh noo talin mayso dooni mayso maalintaasna waa leeydi gowracay maanta 49 kiiba taagantiin 2024 karaaminay soo ku fi hadal qaaliye waan ku sugay sharafteedii waa soo ku finayna adeer galmud sharafteedii soo ku fi walaalo hayna qurxay gal marka 24 labadii 94 iyo 2024 way isu eegyihiin waa same shit goluhu waa golihii waa gurtidu waa Saleebaan Gaal waa musabixi aniga wax dili kara duca qaadan maayo waa Maxamed Kaahin waa isla maalintu waa maalintii saacaduhu isu eeka ayaamuhu isu eeka waqtigu isu eeka calan astu isu eeka faracastu isu eeka marka anagu waxa weeye markaad noo hiilinayseen aad lahaydeen dagaalka kuma jirnana waxaad ogeydeen dulmiga 49 kiilaydu ku sameeyay annaguna kan 24 kalaydu ku qaado wallahi waa idin hiilinayay billahi iyo tallaahay wayna idinku soo socotaa hadda ceergaabo waxa wax looga wadwadaana in hartiyeydi kala isku kindiro oo meel hub iyo shiidaal aad weydaan oo niman wax fahansan weydi ku jiraan kursiga heli maystaan nimanka iska celiya ama abiid dhaho gacmaha taaga isdhiiba war waa soo celiya hadalka